nin dhakhtara ayaa mar ii warramay waxaa lay keenay buuhi nin xanuunsanaya ninkaa xanuunsanaya walaalkii baa waday buuhi ninkii baan baadhnay markaan baadhnay ayaa waxaannu ka hellay buuhi xanuunkii khatarta ahaa ee aidhiska ayaannu ka hellay nacuudu billahi min daalik xanuunkii markaannu ka hellay baan waaniyey buuhi markaasaan ku idhi dhammaanteen waa wada dhimanaynaa ruux xanuunsanaya iyo ruuxaan xanuunsanaya mid wali waa dhimanaya mid horraynayana ilaahay baa og ka caafimaadka qaba iyo ka xanuunsanaya mid horraynaya ilaahay baa og marka kollayba haddaynu wada dhimanayno dee in markaa la toobad keeno oo xagga ilaahay loo noqdo ilaahay la baryo oo yacnii tawba lala yimaado iyo istikfaar dunuubtana laga baxo yacni la toobad keeno cibaadada lagu dadaalo lagu sabro musiibada iyo dhibaatada yacni waajibku waa saas waan waaniyey buuri waanadii ilaahay waa ku anfacay waanadii waa qaatay ninkii ma tukan jirin markii uu cibaadada bilaaba dhowr bilood dabadeed ayaa walaalkii i yimi buuri 6 bilood buu sii noolaa markuu u yimi walaalkii wuxuu iga shukri naqay buu idhi waanadii maalintii dabeedna wuxuu idhi walaalkay xanuunkani waa uga reeyey waayo cibaado ma aqoon buuri ma tukan jirin hadallada kufriga ee gaalnimada ah ee cayda ana ee gaalnimada ana waa ku hadli jiray maalintii markii aadna waanisay laga bilaabo wixii uu ka baxay cibaadadii iyo salaaddii buu bilaabay muddadii sidii buu u tukan jiray buuri wixiina waa ka toobad keena markii dambena isagoo masjidka ku jira oo salaaddii makhrib tukaday tii cishana sugaya baa geeridu u timi masjidka gudihiisa ku dhintay makhribkii waa tukadoo masjidka ku tukaday buuri cishihiina waa sugayey halkaasay nafta kaga baxay buuri marka walaalkay xanuunku uga reeyey buuri marka shaekhulislaam ibnu taymiya waxau yidhi almasaa'ibu nicma macnaha uga jeedaana waa saas waa waxay sababayso iyo waxay xambaarsan tahay iyo qofku musiibadii markaa inuu rumaysan yahay qadarka ilaahay sida xadiiskii horeba aynu ku aragnay wa in asaabathu daraa'u sabra fa kaana khayran lah